wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi Madagascar ayaa waxa uu ku hanjabay inuu adeegsan doono ciidamada militariga ee dalkiisa haddii aan xal laga gaadhin mashaakilka siyaasadeed ee ka taagan waddankaasi doorashada ka hor. Dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa waddankaasi ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo dadaallo ay dawladda dalkaasi ay ku doonayso inay hogaamiyaha mucaaradka kaga hor istaagto inuu ka qayb galo doorashada, waxaana toddobaadkii hore ay maxkamadda dastuurka ee waddankaasi ay ku amartay madaxweynaha waddankaasi inuu soo dhiso dawlad midnimo qaran ah. wasiirka difaaca ayaa ku baaqay in hogaamiyayaasha dalku ay soo afjaraan qalalaasaha siyaasadeed haddii si kale loo dhigana inay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanshahooda isla markaasina ay dhisaan dawlad wadaaga. waxaana uu sheegay haddii ay siyaasiyiintu arrintaasi xallin waayaan in laamaha ammaanku ugu dambeyn ay soo afjari doonaan qalalaasahaasi. doorashooyinka ayaa lagu wadaa inay waddankaasi ka dhacaan qaybaha dambe ee sanadka, balse siyaasiyiin iska soo horjeeda ayaa raba in midba midka kale uu u adeegsado maxkamadaha si uu u wiiqo. waxaa jira cadhaysa soo taraysa oo loo qabo siyaasiyiinta, mana cadda goorta ay fursad ka heli doonaan shacabka waddankaasi si ay ugu codeeyaan